arrimaha dibadda golaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliya oo gudanaya waajibaadka ka saaran korjoogteynta iyo xisaabtanka hay'adaha dawladda ayaa maanta xafiiskooda ugu yeeray mas'uuliyiinta wasaaradda arrimaha dibadda oo uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee xukuumadda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi. kulanka oo ay gudoominaysay gudoomiyaha guddiga arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka dalka Maryan Faarax Kaahiye ayaa wasiirka looga dhageystay warbixino guud oo ku saabsan shaqada wasaaradda waxyaabaha uu qabsoomay arrimaha xiriirka caalamiga iyadoo sidoo kale la weydiiyay su'aalo ku saabsan guulaha ay Soomaaliya ka gaartay damaca guracan ee Itoobiya shaqada safaaradaha Soomaaliya ee caalamka iyo sida ay ugu adeegaan muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool wadamada adduunka. ugu dambeyn gudoomiyaha guddiga arrimaha dibadda golaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliya Senator Maryan Faarax Kaahiye oo kulanka soo xirtay ayaa uga mahad celisay wasiirka sida hufan oo warbixinta uga siiyay guddiga shaqada wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga iyo sidoo kale su'aalihii kale ee la weydiiyay. maanta waxaan ka guddi ahaan u yeernay guddiga arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga u yeernay wasiirka arrimaha dibadda Axmed Fiqi iyo xubno kale oo asaga hogaaminaya oo agaasimayaal ah sida ku xusan xeer hoosaadka iyo dastuurkeena anagoo gudanayna waajibaadkeena waxaan la sameynay isla xisaabtan ku saabsan shaqada ay hayaan runtii ugu horeysa si ay nooga warbixiyaan xaaladda maanta dalka uu ku sugan yahay iyo meesha uu marayo khilaafkii u dhaxeeya Itoobiya iyo dalkeena. waxa kale toon su'aalo badan ka warsanay safaaradaha aan ku leenahay dalka dibadiisa. waxa kale toon su'aalo ka warsanay qaabka ay wasaaradda u shaqeysay ilaa iyo tan intii uu xilka la wareegay oo laga joogo muddo 6 bilood ah. dhammaan su'aaladii aan warsanana wuu nooga jawaabay. waxaan rajaynayaa in isla xisaabtankeena iyo wada shaqeynteena uu meesha ka sii socdo anagoo gudanayna waajibaadkeena dastuuriga ah.